Hidiga xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa maanta waxay la ciyaari doonaan dhigooda dalka Zimbabwe kulan ka tirsan Israa'iilka dhacdo koobka adduunka 2022. Kulankii hore xulkeena Soomaaliya wuxuu ku soo adkaaday hal gool iyo bir. Rajadana boqolkiiba sanadka way wanaagsan tahay. Qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgalay idaacadda Gool FM taasoo ka faaloota arrimaha ciyaaraha dalka dibadda ayaa ka aragtidooda ku aadan rajada xulka qaranka Soomaaliya rajada sanadka u rajeynayaan. waa kuwan qaar ka mid ah wariyaasha Gool FM oo aragtidooda dhiibanaya. Bismillahirrahmanirrahiim magacaygu waa Nimco Magan waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgalay idaacadda Sportiska ee Gool FM. runtii ciyaarta Zimbabwe iyo qarankeena Soomaaliya waa mid aad u xiiso badan. haddii saadaal la dhahana dabcan waxaan ku dabaqi lahaa labo midna saadaal midna waxaan ku dabaqi lahaa wadannimo iyo jacayl oo aan rabo ciyaarta sidaas inay u dhacdo. tan haddaan ku horeeyo ciyaarta sidaan rabay inay u dhacdo waa in Soomaaliya ay badisaa ama bareejo ay gashaa si ay ugu gudubto qaybaha kale ee koobka adduunka 2022 oo aan sahlaneyn dabcan sidii aan kaga mid noqon lahayn xulalka qaybgalaya. saadaasha haddii aan runtii waxaan isleeyahay kulankaasi wuxuu ku dhamaanayaa hal gool iyo hal gool. Zimbabwe hal gool ay naga dhalin doontaa inaguna hal gool ayaan ka dhalin doonaa taa oo markaa ka dhigan in wiilasha Ocean Stars heerka kale ee tartankan markii ugu horeysay ay markaasi u gudbaan maadaama aan gaarnay toddobaadkii tagay dhamaadkiisa guushii ugu horeysay ee koob adduun. marka wiilasha Ocean Stars ee dalkeena waxaa rajeynayaa iyagoo guul noo keenay in caleemo qurux badan oo qoyan aan ku soo dhaweyno xitaa haddii laga soo badiyo ay soo haraan waan ku soo dhaweyn doonaa guul iyo gobonimo. الرحيم magacaygu waa Harun Yusuf Qasaaro kamid ah howlwadanada idaacadda Gool. haddii aan isku dayo saadaashayda kulanka Israa'iilka koobka adduunyada ee xulkeena qaranka Soomaaliya uu ciyaarayo waxaan is dhihi karaa xulkeena ciyaar wacan ay soo bandhigeen kulankii ka dhacay Djibouti hal iyo eber inkastoo ku adkaadeen oo ay ahayd in goolal badan ay dhaliyaan haddana gool iyo eber ay ku soo adkaadeen. kulanka xiga ee markaa ka dhici doona Zimbabwe magaalada Harar ee caasimadda dalkaasi waxaan isleeyahay xulkeena qaranka Soomaaliya waxa uu ku adkaan karaa 2 gool iyo gool iyadoo aan saadaasha aan u badinayo in xulka qaranka Soomaaliya qaybta hore ay gool dhalin doonaan laga bareejeyn doono haddana gool kale guusha ay xilli dambe dhalin doonaan 2 gool iyo goolna ay ku adkaan doonaan sidaasna aan ugu gudbi doono heerka gruubyada koobka adduunka lagu qabanayo Qatar. salaam ugu dhawahay magacaygu Shaafici Maxamuud Nuur oo ka howlgala Gool FM. haddii aan saadaal ka dhiibto badan u dhaxaysa wadanka Zimbabwe iyo Soomaaliya oo caray Zimbabwe kula ciyaarayso wadankaasi dabcan kulankii la soo dhaafay gool qurux badan aan gaarnay haddii aan Soomaalinahay caradeennina way noo hiileysay oo dabcan Djibouti lagu ciyaarayay. ani ahaan waxaan isleeyahay Zimbabwe waa xul aad u adag marka dalkooda lagu ciyaarayana awood ay leeyihiin. digaha Soomaalidana indhaha caalamka eegaya iyadoo beejadka ugu waaweyn ee kubadda cagta looga hadlo lagu soo daabacay xulka Soomaaliya iyo guusha uu markaas gaaray kulankii hore. si kastaba ha ahaatee ani saadaaleed haddii aan u guda galo isla markaana aan soo koob waxaan dhihi karaa xulka Soomaaliya kulanka soo socda waxaan u rajeynayaa in guul soo gaaro waliba hal gool iyo eber uu ku soo badiyo iyadoo aan xisaabta laga saari karin in wadanka Zimbabwe uu yahay wadan aad u adag isla markaana xitaa deegaan aad u adag ay soo wadan doonaan oo xulka laga ruqseeyay dibna ay ugu soo celin doonaan. marka Soomaaliya guul aan leeyahay hali ibra ku badin doonaa dabcan gool qurux badan oo noqdaan rajeen doonaa oo dunida ay hadlayso. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. waa anigu asagal daahir qaasim kana howlgala idaacadda ciyaaraha dalka ee Gool FM. haddii aan saadaalin ka bixiyo ciyaarta dhexmari doonta xulka qaranka Soomaaliya iyo dalka Zimbabwe waxa uu rajeynayaa xulkeena qaranka Soomaaliya inay guul ka gaaraan dalka iyo Zimbabwe inay guul ka gaaraan hal iyo eber ku guuleystaan. igu waa Maxamed Daawud Barre waxaan ka howlgalaa idaacadda ciyaaraha dalka ee Gool FM. xulka qaranka ee Soomaaliya maalinta baritaa wuxuu ciyaarayaa lugta labaad Israa'iilka koobka adduunka iyadoo aan ognahay in kulankii hore ay kaga adkaadeen gool iyo waxba dhigooda Zimbabwe. waxaan rajeynayaa in ciyaartaasina natiijadii hore in ay ka soo baxdo oo gool iyo waxba ay kaga adkaadaan xulka qaranka ee Soomaaliya. guul ayaan leeyahay Soomaalida oo dhan. waa Cabdullaahi Cabdi Abshir Tor Marison oo kamid ah wariyaasha ka howlgala
magaalada Muqdisho gaar ahaan idaacadda ciyaaraha dalka ee Goal FM. haddii aan saadaal ka bixiyo kulanka u dhaxeeya xulalka qaranka ee Soomaaliya iyo Zimbabwe, xulkeena qaranka lagu naanayso Ocean Stars waxay berri ciyaari doonaan kulanka lugta labaad ee isla reebka koobka adduunka ee lagu soo baxayo Euro koobka adduunka ee 2022. xulkeena qaranka Soomaaliya waxaan u rajeynayaa guul inkastoo ay adag tahay in saadaal laga dhiibto kulankaas maadaama lagu ciyaari doono guriga xulka qaranka Zimbabwe. waxaan u rajeynayaa xulkeena qaranka Soomaaliya laakiin saadaasha ciyaartaas waxay noqon doontaa barbadhac eber iyo eber. sidaas ayayna xulkeena qaranka Soomaaliya ugu gudbi doonaan wareegga labaad ee isla reebka koobka adduunka 2022. magacaygu waa Maxamed Said Cabdullaahi waxaan ahay wariirka faallada arrimaha sportska kana howlgalay idaacadda ciyaaraha dalka Goal FM. kulanka lugta labaad ee galabta ciyaari doonaan xulkeena qaranka Soomaaliya ay wajihi doonaan xulka Zimbabwe. haddii aan aragtida ka dhiibto kulankaasi wuxuu ku dhamaan doonaa 2 gool xulka qaranka Soomaaliya ku adkaan doono. magacaygu waa Cabdishakuur Cabdulqaadir Cali kana mid ah wariyaasha sportska gobolka Banaadir. Ocean Star xulka qaranka Soomaaliya iyo Zimbabwe kulankii lugta labaad ee isreebka koobka adduunka ay ku yeelan doonaan dalka Zimbabwe. waxaa guul u rajeyn doonaa wiilasha Ocean Star waxayna soo hooyeen guushii ugu weyneed ebed ay ka gaareen koobka adduunka. waxaan rajeynayaa inay si laba jibaaraan u sii dhabar adeegaan guusha ay ka soo hooyeen Zimbabwe iyadoo adag tahay in aan u gudubno koobka adduunka 2022 ka dhici doona Qatar. haddana waxaan rajo ku qabnaa inaan xitaa wajiga labaad aan imaano xitaa wajiga saddexaad si aan u soo dhawaano horumarna aan ugu sameeyno dhanka kubadda cagta. aad maasantii waxay ku dhamaan kartaa aniga as leeyahay 3 gool iyo 2 gool Soomaaliya ku adkaan doonto. waasi waxay ahaayeen wariyaasha ka howlgalay idaacadda Goal FM oo aragti kala duwan ka baxsaday kulanka weyn ee galabta ee ciyaari doona xulalka Soomaaliya iyo Zimbabwe iyagoo ka aragti dhiibtay sidoo kale ka midaysanaa inay Soomaaliya sanadkaani ka hormari doonto ama Soomaaliya ay guul ka gaari karto lugta labaad. Cabdi Fataax Abdirashiid Abuukarnaani, Goal FM, Muqdisho.